بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد كسر وتان بلا كوفي وحلا ذلك الضواتان. سنة والبا جامعها waxaa ka soo qalin jabiyay waliba kulliyada caafimaadka dhalinyarada aad fara badan oo taqaatiir ah kuwaas oo suuqa shaqada soo gala bulshadana u shaqeeya. Waxaa jira caqabado iyo fursado isbarbar yaala oo ay wajahaan dhalinyaradaasi. Haddaba arrimahaas ayaan kala sheekeysanaynaa Nasra Cilmi Cabdi oo ah agaasimaha Somali Health Caris oo ah xarun dhalinyaro fara badan isku haysa ku xirta isbitaalada talooyin siisa fursado shaqo abuur ah la raadisa una abuurta farxad bay noo tahay Nasra agaasimeena nala joogto soo dhow ما شاء الله ودوهاي وانا كدوا بلا كوفي كاga mahad celinaa fursadaha siisa ee Saudi waa mahadsan tahay annagana kaaga mahad celinaynaa waqtiga aad nala qaybsanayso intaasi kadib bal si guud uga waran bahda caafimaadka waliba dhalinyarada ku cusub ee isbitaalada yimaada ama shaqooyinka ka raadiya isbitaalada xilliga aad bilowday inaad isku ururiso numberkay dhan yihiin ilaa hadda waxa idin qabsoomayso okay ma sha Allah horta kaaga mahad celinaya anaga waxaan leenahay xarun oo tababaro bixiso tababarkan waxaan ku dhisnaa inay xirfado helaan ardayda ka soo qalin bedelata ama sanadka ugu dambeeyay maraysa waxbarashada dhanka caafimaadka waxaan siinaa tababaradaas kadibna waxaan ku xirnaa isbitaalo waxaa ardayda ka soo qalin jabiyaan maxaa la yiraahdaa dugsi jaamacadaha kuwana ay marayaan darajada ugu dambayso ama semester 8ka waxaan bixinaa tababarada la xiriiro pre-hospital activity ama isbitaalada intaysan tagin kor waxyaabaha looga baahan yahay oo shuruudaha inuu qofka buuxiyo iyo marka uu isbitaalka tago waxyaabaha uu ku arkayo sababtoo ah markaad cilmiga ka baranaysid daraasad ahaan u baranaysid iyo markaad by practical u aragto way kala duwan tahay marka ardayda waxaan ka saacidnaa inay helaan practicalka waxaan ka shaqeynaynaa muddo oo 7 sano ah 7 sano waxaa jirta number aad u badan aan ku xirnay isbitaalo si volunteer isbitaalada ku soo dhaweeyaan marka waxaad u dhaxaysiin isbitaalada u baahan practical iyo aqoonta caafimaadka iyo dhalinyaradii ardayda ka soo baxaysay jaamacadaha u baahan inay tababar iyo practical helaan isku xirtaan isku xirnaa taasaan ka shaqeynaa marka taasaan marka waxay sahlaysaa ardaygu markii jaamacadda laga hadlayo waxay siisaa maxaa la yiraahdaa 2 mar ee tababar la siiyaa 2 mar waxaa laga yaabaa in 2 bilood isbitaalka uu kula soo heshiiyo jaamacadda ama ay kula soo heshiiyaan jaamacadda isbitaalaadka bil marka ardaygii 2 bilood wuxuu ka tagaa 2 maalin 2 maalin waxaa laga yaabaa isbitaalku inuu yahay isbitaal private ah ka shaqeeyo si sharafkiisa u ilaalin lahaa soo marka ardaygu u imaade practical way ku adkaanaysaa inuu maxaa la ka helo adeegyada u baahnaayo idil marka waxay sababaysaa ardaygii asagoo wax badan ka soo faa'iidin ilaa asbuuc hadii 2 maalin lagu dhaho bisha dhanaa 4 asbuuc caafo soo asagana waxaa laga yaabaa inuu 12 bari ama uu ka tago 8 bari inuu ka tago bishii idil marka 12kaas bari ama 8daas bari waxaa laga yaabaa cilmi ku filan oo beritool marka baajkada siiyo oo la soo meel fadhiisto inuusan heshanin marka waxaa abuuran platform ah in ardaygu isbitaalku la shaqeeyo oo muddo volunteer ah sanadooyin kala shaqeeyo isbitaalka asagoo soo maraayo shuruucaha xarunta u dhagan tusaale inaan qofkii cilmigiisa gadaal u raacno inaan practical gacanta aan siino inaan ka bacdi isbitaalo aan ku xirno si tartiib ah jiinkaas oo la galo qaar badan marka waxaa jirta isbitaalada inta ku fara adeegay sanadooyin badan joogo shaqaale loo qaato maanta oo isbitaalo waaweyn oo ku yaala magaalada Muqdisho qayb ka yihiin marka waxaa yareena caqabadii badnaa ay u sababaya dadka inay helaan at least shaqo la'aan ma dhihi karnaa laakiin practical la'aan dhanka caafimaadka muddo 7 sano ah waa ma badna haddana waa waqti ku filan maxaa la yiraahdaa inaad tijaabo samayseeno ilaa maanta dad aad tababar u samayseen oo jaamacada ka soo baxay ay shaqaale yihiin ama laga yaabo in madax caafimaad isbitaalada ay ka yihiin arrintaasi maxay ka bedeshay suuqa camalka ama suuqa shaqada dhanka caafimaadka waliba wallahi awayso anaga markii loo fiiriyo soofa waxaa jirto dad badan oo ka baxay xarunta oo 1500 qofood ah soo 1500 qofood waxaa xusid mudan dad maanta shaqaale loo qaato salary fiican ku shaqeeyo isbitaal inta geeyay almost 3 sano ka hor waxaa jirtay habeenada kamid ah inta aniga arimo ugu baahday isbitaal aan baxay oo tagay soo qofaa 3 sano ka hor meel geysay saa ku xasuusato aad kaanaysaa marka waxaa dhacday inay salaamaan doores anaga mana xasuusataa maya ardayda dufcadaadii oo xilli hebel ka baxday xaruntaan
soo isbitaalka shaqaale kalena waliba maamula kanaan maxaan ka saacidnaa marka ka anaga ahaan markii loo fiiriyo horta waxaan ku farxaynaa mar walba qof keeni oo xarunta ka baxay oo isbitaaladeena sida quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen in ay shaqo helaan oo isbitaalka shaqaale ahaan u qaato adina waa iska dareemi kartaa isbitaalka asagoo dignity private iyo waxaa loo kala bixiyaa iyo public markay tahay qofka asagaaba xuquuq u leh inuu dadkiisa u adeego maadaama ay tahay isbitaal shacab weynaha Soomaaliyeed loo furo sida Banaadir oo kale Dhimatiina hospital oo kale toole isbitaalka Dayneel oo kale isbitaalahaas ka shaqeysid waxaa waajib adig ku saaran wadaba adig Ilaahay cilmi ku barabo inaad si volunteer ula shaqeyso laakiin marka isbitaalku yahay isbitaal private ah shakhsiyaad caadi ah furteen waxa adkaanayso in maxaa la yiraahdaa bukaanadii si qurux badan in loogu adeego u baahan yihiin ardaygan wuxuu leeyahay space ku filan inuu helo marka isbitaaladu waxay noo siin tixgelin markii anaga xarunteena taageertaa dadka ay qaataan inay aad noogu tixgeliyaan wali waxta waxa xusid mudan isbitaal qaar intii soo wacan dufcadii aad noo keentay waxaan ka qaadanay 4 qofood 5 qofood waxaa kamid ah maasha Allah isbitaalka Aadan Cabdulla Cusmaan shaqaalo ardaydeena ka tirsanaa joogto waxaa kaloo jirto isbitaalka Kalkaalo kale toole xarunteena dadka aflaxa joogan Soomaali Suudaaneysi oo kale toole way joogan macnaha soo isbitaalka kale ka sii badan marka waxay anaga noo fududeynaysaa in shaqadii hore u sii socoto anaga dad dhiiran aan noqono si shaqeyno marka kun qof oo soo saarno dadka carab adkaado oo maxaa la gacan adkaado shaqeysto u dhabar adeego waxa fududaanaysa inay maxaa la shaqaale fursadnimo shaqo helaan marka haddana waxaan dhawaan soo kordhinay barnaamij ah inay qofkuna shaqeysto isbitaalkana la shaqeysto marka saas ku leenahay dadkeenu waxay ka dhinteen ama ay la yihiin dhanka xirfadla markaa tahay waxa ku fududaanayso inaad ABCD tan hadaa weyso mid kale aad ku kafar galayso karta inaad hesho waxaan aad ula dadaalnaa inaan dadka soo dhisno xirfadda suuq geynta ama xirfadda marketing la dhahayo waa min hada ugu fudud ee maanta laba qofood wax ku kala faa'iidi karto marka waxaan sameynay gelinay inay practical ka qaataan isbitaalka gelinay isbitaalka u qidmeeyaan isbitaalka u adeegaan ay dadku soo xiraan waya qofka hadda soo qalin jabiyay ee raba in xaruntiina tababarka uu yimaado ujeedkiisu uu yahay inuu isbitaal ama hay'ad caafimaad la shaqeeyo maxaa shuruudo ah aad ku xirtaan haddaad si kooban ugu sharaxo horta shuruudooyin badan ay jirto aan ku xirno walow qisasyo badan naga soo maray laakiin waxaa jirta shuruudo badan aan ku xirno shuruudda waxaa kamid ah qofka inuu keensado warqad caddeynaysa inuu jaamacad dhigtay haddii jaamacadda process ongoing process u tahay haddii jaamacadda uu ka qalin jabiyey inuu qofka noo keeno shahaadada jaamacaddiisa ka qalin jabiyey waxaan maraka nahnay oo aan aragnay dad aad u fara badan oo baakadi wato laakiin aanan xirfad lahayn shahaadadii wataan laakiin wax xirfad ma lahan macnaha soo wax kalsooni kugu abuurayso in qofkii aadan waxba garanayn inta wadiid asoo wax la yaab resting ku jira 2 sano oo guri iska fadhiyo inuu ku imaado ku yiraahdo waqti filan qalin jabi markaad su'aalooyin qaar ama assignment inaad ka qaadi rabtid in qofkii waxyaabo badan oo ku guuleysan waayo ama si saxan ugu jawaabo wixii aad weydiis marka waxaa la yiraahdaa waxa qofku xujeenaa shuruudda kuwaad inay la imaadaan maxaa la yiraahdaa warqad cadeynaysa waalidiintoodana inay noo keenaan sababtoo wax walba dhici karo saasna aan ugu xirno isbitaalaadka qofkii aan ku geeno marka khidmad yar laga qaadaa oo lacag ah khidmadaas qofka registration ah registration kaas inta process ku socdo yaan ugu dhameynaa kadib isaan isbitaalaadka ku xirnaa maxaa higsanaysaan mustaqbalkiina wuxuu yahay hadda dhalinyarada tababarteen isbitaalaha ku xirteen howlwadeenay ka noqdeen qaar maamulayaal ka noqdeen ma visionka ama aragtida ugu dambayso higsanaysaan maxay wallahi aragtida ugu dambayna higsanayna waxay tahay in aan yareeno baahida ama caqabada ah dadka inay helaan cilmi ku filan inta jaamacad daraasaynayaan sababtoo caafimaadku waa wax gacan ka qabasha waa badbaado nafsadeed waa meesha ugu muhiimsan ee shaqo laga qabto maadaama taas ay tahay inaan sameeyno ardayga markuu semester 5 soo galo darajada maxaa la yiraahdaa oo cilmiga qaybta shanaad oo ka soo galo inaan u bilaabno practicalkaas oo noqdo muddo volunteer inuu ku shaqeeyo saaka warhayso aweeso waxaa jirto adduunweynaha kale toole qofku wuxuu soo maraa volunteer ama dawladda ha u shaqeeyo ama private ha u shaqeeyo volunteerka marka waxay u kordhinaysaa markuu beritool ka soo baxa inaan meelo badan laga sheekeeyo
qofkan wuxuu soo maray A B C D soo maray volunteerku wuxuu ku furaa xitaa wadada dulqaadka oo markii qofkan business oo imaado kale halfa business kan hadii la xitaa gaab dhaqaale imaado ilaa inta qofkan dulqaadan kara qofka markuu volunteernimo soo maro wax badan u kordhaa macna marka anaga waxaan sameeynaa inuu qofku u shaqeeyo horta muddo sanadooyin ah volunteer si iska wax u qabsa marka waxa u fududaanaysa inuu CV-giisa markuu gashto كل لو صدح هوسبيتال سي فلانتير وسو شقي ديبارتمنت اكس انا وسو شقي ورقد عدينيس قفك مركوت way fududaanaysaa inuu qofka si sahal oo shaqada ku helo macnaha oo uu ku shaqeeyo fududaanaysaa ama qofka muddada sanadka la joogtay wuxuu ku yaqaanaa meesha ku fiican tahay wax qabadkaaga saxda ah cilmiga caafimaadka uu badan yahay ma fahamtay soo departmentiga ku fiicnaado qofka ogaan kara kadib marka waxa ku fududaanaysaa jinka isbitaalka qaybta marka looga baahday inaad adag ka shaqeyso dad waxaa jirta inta sanadooyin ka shaqeeyay ka tagay isbitaalka dib loogu wax la dhahay imaada isbitaalka waa qof ex ah oo lagu baahan yahay anagana soo inform gareeyay shaqaalana loo qaatay fahant li qaat waa 2 sano 3 sano joogo markastana nagu soo laalaabanay muddo joogna lacag oo baahanahay familiga wax umbu ku adduunaa marka waxaan anaga hadii laga helay cidna kuma sii deynayso oo macnaheedu CV-ga qurux badan yahay cidna jidkaaga ma tagayso fursad lagaaga ma tagayso dhalinyarada wax gasheen wala sheekaysateen caqabadaha ugu badan ay ka cabanayaan ama ay la kulmaan maxaa ka mid ah intaysan idin imaanin ka hor iyo marka idin ka tagaan kadib horta laba u kala qaad dadka markii processka waxbarashada u socoto kale toole dad waxay ku imaanayaan hamigooda yahay markay baakada helaan iyo xirfadooda inay isku meel ku dhacdo oo qof markii hiring la sameeyo ama shaqo la soo bandhigo CV-ga qofka isla sheekaysta inay rabaan dadna waxaa waaye caqabad waxay ka tabanayaan in jaamacadda inay kasoo qalin jabiyeen jaamacadda qudheeda aysan la raadin wax shaqo ah ama fursadaha banaan aysan la raadinin markay yimaadaan inay ku dhahaan kale caqabadan haysto waxaa waa aniga waa soo baakad waa wadanaa laakiin confidentiality isku qabo inaan shaqadii aan ka shaqeyn karo isku qabo marka waxaa u baahanahay kalsooni abuuraysa in shaqada hore ka gala ma jirto marka wuxuu ku leeyahay doctoresoy waxaa u baahanahay inaan helo maxaa la lahaayay volunteer hadda ka bacdi soo xalay qofka inuu resting ku jiro muddo 5 sano ma fahant qofka marka nafsadiisa waa guilty dareema xanuun dareema waxa kale xanuun dareema waalidiinta intaas sano ku soo lacag beele waqtina uu qofku ku socdaa marka waxa u fur noqonaa elite fur marka qofka dhow wax ka soo faa'iideyn inta uu soo laabto leeyahay ma hasantihiin shalay maanta farqiga noo dhaxay shalay waxa ah qof indhe xiran waxa ah qof 150 meel CV geesta la aqbali waay caqabada dad qaar waxa jirta qaadaan CV-ga waxay geenayaan isbitaalay geenayaan yes adii hiring la sameeyo qofkii requirement-iga inuu ka soo baxo waay markii laga tagay ma aan dadkeenu wada update noqdeen shalay dii ahaan jirtay in hebel maanta waa laga tagay waxa waa yaaran garan kar business-kan yaa ka shaqeey karo maanta ay taaganta macnaha ida meesha rabto qofkaad rabto ah cid rabto ah aaminkan kullee meel lagu soo sokoor garay company walbo qofku waa aaminayo waxa jirto wadiiqooyin oo isticmaala moodooyin oo maraa jirto marka waxay u fududaan waxaan sameynay maxaa la yiraahdaa dadka CV-da meelaha kala duwan geystay intay soo wacaan waxay leen doreesoy waxa u baahanahay isbitaal ebel ma taqaana warqadaad geysataa ay ana kala hadlaynaa isbitaalka inuu tago marka waxay imalayaan somehow inaan isbitaalada dhan ehel aan wada lahayn ehel inaan wada lahayn marka adoo waxaan leeyahay aniga institution aan cidna maxaa la yiraahdaa waxba nooma gelin laakiin institution aan taxgelinta waxa keenaya waa institution ka taxgelinta keenaya macnaha company ku geey marka waxa jirto inaan reduce ku sameeyno ka sacaqada waxa si dhamaanaya reer hebel iyo qabiilkii aad tahay yaa ku wata intee la eg tahay cudurradaasi iyo xanuunkaasi iyo caqabadahaasi inta hadda la kulanteen dhalinyarada xirfadda ma shaqaynaysaa waayada أنا إنتان أركان كوشيا هذا وين ما لانك إسبتالة ده مرق إبرخات كاهي حاجة في إسبتالة بدن وما أنت ضد أنت جي واللي واحد كمبني يقول حولي قيب ماركتينج توس أو شقين كمبني مرق إسبتالة كوحان سمينا إن MOU سميسنا MOU عشان محل ممرد ولا فن رستان الناس سميسناها كدبنا محل هذا أكون شيء إن ماركتينج مدة لح بلاد مدة سنة مدة أفر بلاد whatever إنها كلا شقينا مركا ماشي أنا كشقينا إنه كونتراكتي جود كمبني سو جلاي أنا ما ضحى عنك أحد لكن سومالوين كشقينا سو معقولة مركا أنا اللي إيه بعند دوينه كلا طول إن لو بعند معنا
ma fahamta waana meesha aan geeyey in la yidhaho mar qaar marka contractiga dhamaado mase waxaa u baahana qofkan ina ii reebto shaqaale toosaa ka dhiganayo kambanigeena toos ula shaqeynaa macnaha marka taa way dhamaatay saa is leeyahay xooggeeda. mararka qaar waxaa dhacda dhalinyarada aad tababarka u geysaan isbitaalada in dad bukaan ah ama bukaan socod ah practical ay ku sameeyaan oo meeshaasi aad arkayso qof xididkii 7 jeer 8 jeer la isku dayay in laga duro laga saaro qofkan uu dareemayo qofkan inuu practical loo soo diray ay tahay arrintaasi ku saxsan yahay bahal caafimaadka. horta ma san tahay markuu ardaygu practical u yahay wuxuu hayaa cilmigii oo theory ah practicalkan hore qalinka looguma dhiibo markuu isbitaalka tago waxaa maleynayaa inaad aragtana waa rajeynayaa markuu dhakhtarku soo galo enroll oo soo sameynayo 4-3 qof hadda u socoto 4-3 qofood waxaa laga yaabaa 2 qofood inay biyoor shaqaale yihiin oo xirfadooda ku filan hal qofna uu yahay qof oo maxaa la yiraahdaa practical doon ah marka mar walba wuxuu kaa fiirinayaa wadooyinka aad maraysid ama wadiiqooyinka aad maraysid back to memory horta su'aalaad qurux badan aad weydiisay oo ana ahaanteeda dib isugu laabto dadka isbitaalka kamid isbitaalada magaalada Muqdisho ka shaqeynayay ma sheegay sheeko ku timid waxaa dhacday marka waxaan ahay arday xilliga ugu dambeeyay waxbarashada maray laakiin isbitaalku waan firfircoonaa isbitaalka waxay fursad ii siiyeen inaan ka shaqeeyo qaybta ICU marka ajaanib la wada shaqeynayay ICU-dii anigoo ka shaqeynayo shaqadii aan ku guda jiro waxaa dhacday inaan hoos usoo dego xilligii freshka oo dhakhtarada bixisay koonka cad markaa wadatidna isbitaalka la joogana qof walba wuxuu kugu wacaa taytalka dhakhtarnimo ugu wacaa marka waxaan galay dhakhtaradii oo meesha madaxda ka eed qolkeedaan galay haweeney ahayd yarka receptionka waxaa lambar ka soo goostay qof bukaan ah qofka bukaanka markuu lambarka soo jartay wuxuu dhaxoo baahanaa dhakhtarada qolkaas ku jirtaa lagu yiri marka waxaa isku soo aaday shiftigii ayada banaanka aadayso fasaxi lahayd oo cuntadii iyo salaadii iyo eelheeda isku soo aaday aniga dalaabal cilmi ahay waxaan ka fadhistay miiskeedii koran ka soo degay miiskeeda iska fadhistay wax akhris iska galay qofkii bukaanka markuu soo galay wuxuu yiri doctoresa waa bukaan ahsan waayo axwaashiisa hore ka galay shaata calaan wata waa mistake laakiin according to that time ana ahaa mistake meelaheno mana galadaas weyn oo igu wacay sharaf iyo doctor markuu dhahay waa istuusi marka bukaankii wuxuu u baahnaa si ruuxiya in loo daaweeyo qof xanuunsanba ma ahayn markaan ka dhageystay systemka ma geli karo daawo ma qori kari oo shaybaar ma geli kari because I'm not a doctor right at that moment so waxaa markaan dhageystay qofka waxaa ii soo baxday inaa maskaxiyan u daaweeyo yarka marka wuxuu ahaa qof subaxi gaariga oo koro ka dego 11 driver oo ahaa waliba driver ajaanib uu ahaa soo subaxi oo galaa 11 saac ka degaa 11 saac ayaa isboojeeb ilaa iyo maqribka bacda xaafadiisa oo tagaa wuxuu cunaa cunto ku filan macnaha waxaa laga yaabaa soo exercise sameynin inuu firaashkiisii tago oo waqti la qaato xaaskiisii marka waxaa imaaday caqabad ah qofka inuu jir ahaan u daalo maskax ahaan u daalo meesha ka hor kusoo ugu horeyso yimaaday inuu iska seexdo adaal dartiis fitamiinada qaar deficiency ku noqdeen why because gaarigu dhex fadhiya qabow ku socdo no movement asi qoraxna ilm isma saaraan counseling kan si waxay doctor inuu exercise sameeyo in habitka lifestyle-kiisa inuu wax ka bedelo yarkii uu ku dhaqaaqay within 1 month qof commitment loo hayo rabay inuu ka baxo kaslaanka ama caajisku dareemo inuu ka baxo qof u baahan yahay wiilkii ma sha Allah wuu yimaaday aniga koraas ka laabtay inaa qaladkaas galacadna muu sheegay laakiin qof waxay u ekaatay dhakhtarada qof inta lambar jarta iska laabtay macnaha waana wax result la siinin camal ay ula noqoto ayada aniguna ma inform gareyn dhakhtarka maan u sheegin inuu qof yimaaday maskax aan u daaway maan u sheegin waxa dhacday markii in maxaa la yiraahdaa qofka iska baxo dhakhtaradiina maxaa la yiraahdaa aysan dareemin wiilka yimaad maalinta ma soo hadiyad wada wuxuu yiri waxaan u baahanahay dhakhtaradii doctorada la soo baxshay dhakhtarada ma yiri dhakhaatiirta dumar waxaa ka joogta ayada iyo qof kale ka joogeen aniga marka jaranjarada soo dawo iga soo go'do ICU aan ka soo dagaan dagood waxaan arkaa
conflict yaro banaan ka jiro macna anoo marka ka baqanayo in shaqada la iga eriyo aa kala firiyay macna qaybtida ku laabtay marka qofka ma ogana moogtahay qoyaa la soo xasuustay nasra la soo xasuustay nasra waa leeyahay nasra la soo dajiyay bal inay nasra noqoto ka bacdi nasra la waay qofkan waa la iska fasaxaa dhakhtarna ma joogo waa soo dagaan dago yeeso qofkan waa qofka raadinaya dhakhtardeeda waa tan baa caafimaad marka sacaadaas ma ku jiro kamid ma marka qofka dhakhtar dhow bugaan gashay waa laga gaafsada dhisma ceebeeyo marka waxa dhacday in qofkii meesha hadiyad uu guddoonsiiyay oo riwada waa mahadsantaa kaaga mahadcelinaya wuxuu ii sheegay 10 hospital ku dhawaad inuu tago dhammaantoodna daweyn u soo qoraan dhammaantood way baarayaan dhammaantood dawo u soo qoraan waxaana kuma fil galeen kaliya wuxuu u baahnaa la talin xagga nafsada u baahnaa fahmaysa iyo lifestyle-kiisa wax ka bedel in loo daaweeyo markii la joogo isbitaalku shaati cad oo dhan dhakhtar ma haddana saas ay tahay u kala soocan tahay dadkii maxaa practicalka ah iyo dadkii isbitaalka shaqaalahaan u qaato cilmigooda ku filnaa marka mar walba maxaa waa abide by the rule waa sharciga meesha ka jira loo hogaamiyo anaga xitaa waxaa kamid ah ardayda markaan isbitaalka geenin inaan shuruucda u aqrino aan raan kan waa inaad maxaa la yidhahdaa u sameysaa sida loogu baahnaa marka awees arrintaasaan kaa leenahay dhanka oo maxaa la practicalka ardayda waa mahadsan tahay xog badanaa kugu jirta macluumaad badan baa haysaa 7 sano dhalinyaro fursad u baahan shaqo iyo practical aad caawinaysay waa soo gabagabeynayna barnaamijkeena haddii lagu yidhahdo tala sii qof fresh ah oo hadda jaamacad ka soo baxay fursad shaqana raba maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa horta inay ahaadaan dad oo xirfadooda gacanta u fadhiso waaba hadday ahaayeen dad markay wax baranayeen ka soo faa'iideysto waqtigooda waxbarashada iyo waqtigooda cilmiga caafimaadka ku tacalluqo qaybta gacanta ama farsamada gacanta haddii labadaas ay sameeyeen waxaan ku oran lahaa markaas hiring la sameeyo waa waajib in la qaato haddii ay jiraan xitaa inta meel la soo bandhigan xaruntiina waa soo mari kartaa haddii cilmigaagu isku filan yahay haddii kale waxaan kula talin lahaa inay muddo volunteer ku shaqeeyaan waayo waxaan la badbaadinayo waa nafsad marka inay practical sameeyaan in muddo ah ku shaqeeyaan cilmiga volunteer ilaa uu ka yiraahdo qofkii baraha u ahaay waad isku filan tahay waad noqon kartaa shaqaale ku filan samarka dulqaadka in badsan أستاذ نصر علمي عبدي أدبض ما سنتهي داوديال أنت سينكسوق ويننا برنامجكي بلا كوفي وتكون مهتنتهين داو شدي ست ضباط كان حاجة أنت ردبو كل ما ينو أنا يو أجاسيم نصر أو أجاسيمها صومالي هيلث كاريس حرون كشقيسة تببركة فرصة الرادين تأمسين تبني رضا كصوب جامعة لها يو أيقل أنت وحنا دلنا هاي نبت قليل السلام عليكم